gabadhani waxa ay 12 sanadood wax ka baranaysay dugsiyada dalka jaamacadeediina waxay ku soo qaadatay Uganda in ka badan sanad waxa ay ku hungowday shaqooyin ay meelo badan ka raadinaysay welina waa bilaa camal adigoo waalidkaaga intaas sano lagu tabcayay intaas sano wax laga bixinayay oo lagu rajo weynaa oo lagu han weynaa oo intaas sano isla qofkani maanta uu ku bedeli doona booska inaad wali hadana maanta wali waalidka wali aniga especially hooyaday aan wali si daba fadhiyo imika ilaa masterteeda bixiso marka taas niyad ku keenaysa waxbarashadii xitaa inay dadku ka niyad jabaan dad badan baba dukaan ma iska furitid iska taajir la xiligaas inta wax baranaysid aqoon ma shaqeynaysa inkasta oo ay jirto camal la'aantu haddana waxa jira dhalinyaro ku dadaalaya sidii ay nolosha u maareyn lahaayeen Nuruddin waxa uu u tahriibay Yurub si uu nolol wanaagsan u helo halkaasina muu mahadin oo shaqo ka muu helin kadib 2 sanadood oo uu Sweden joogay waxa uu go'aansaday inuu dalkiisii ku soo laabto maanta wadi jeeday wad arkasta dawal shaqaysanayna macna haysta alxamdulillah dadin la aaminayo maanta wadankiisii ilaahay ku nimceeyay oo aan ilaahay isku daba taagin oo qowlkiisa iyo kalsoonidiisuba ay tahay dadin xorriyad u shaqaysanaya adduunyada waxa loo dagaalamaana waa xorriyad aabbaanahay awlaad leh oo caruur dhalay maanta anu noloshaydu waan isku filanahay shaqalaanta bulshadu waa 70% sida ay qaramada midoobay sheegtay haddaba si taasi loo yareeyo ururada sida shaqadoon ayaa dhalinyarada ka caawiya xirfado ay isku dabaraan sababaha shaqalaanta dhalinyarada haysata ay u badan tahay ayaa waxa kamid ah iyagoo aan lahayn aqoon ay ku dabaqi karaan shaqooyinka wadanka gudihiisa ka banaan waxaase dhalinyaradana ay baranayaan farsamada casriga ah oo ay kamid tahay samaynta muuqaalada qurxinta sawirada iyo dhisidda website-yada taasi oo u sahli karta inay si fudud u shaqo galaan ugu yaraan qoysaska kala badh in ka badan ayaan shaqo hayn qofka amal faraha ku hayana waxa culays ku haya dhowr qoys oo qaraabadiisa ah oo noloshooda uu dabaro Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa haddaba shaqo la'aanta baahsan ee haysata dhalinyarada Somaliland halkay salka ku haysa sidee loo xallin karaa iyo waliba waxa la gudboon madaxweynaha cusub inoo faahfaahinaya Maxamed Sulub oo ah bare jaamacad ka dhiga culumta shaqo abuurka shaqo la'aanta baahsan ee aadka ah ee 70% gaaraysa waxa keentay ugu muhiimsan dhalinyartii oo lahayn xirfadii farsamada aan lahayn oo iyo dalkii oo ay ka furnayn iskuuladii ama dugsiyadii farsamada gacanta waxa laga bixi karaa dawladda cusubna looga fadhiyaa iyadana in la sameeyo dugsiyadii farsamada gacanta waa koow labaadna waa in dhaqaalihii economic diversification in la sameeyo oo xukuumadda waliba waxa laga doonayaa in raw material xoolaheena raw materialka lagu dhoofinayo inay additional value ku sameyso oo ay inta la package gareeyo iyagoo halkan iyagoo package oo hilibkii la sii sameeyo package in la dhoofiyo